nin ayaa markii ugu horreysay noloshiisa soo iibsaday dameer farxaddu ku faraxsanaa awgeedna waxa uu saaray xagga sare ama saqafka gurigiisa si uu u tuso guryaha qabiilkiisa iyo siday u eeg yihiin una kala barto dameerku waddooyinka oo aanu u lumin. markii uu gabalku dhacay waxa uu doonay ninkii inuu soo dejiyo dameerkii si uu uga xareeyo xeradiisii, laakiinse uu diiday dameerkii inuu soo dego oo waxa uu ka helay meeshaa sare. waxaanu go'aansaday inaanu sooba degin. wuxuu isku dayay ninkii inuu ku qanciyo dhowr jeer, laakiinse uu marsiin waayey. haddana wuxuu isku dayay inuu awood ku soo dejiyo, laakiinse dameerkii wuu isku adkeeyey waanu soo degi waayey. gurigii baa bilaabay inuu gariiro, saqafkii guriguna wuu xamili waayey boodboodista dameerka iyo awooddiisa. ninkii ayaa soo degay, waxaanu ka soo bixiyey gurigii gabadhiisii iyo carruurtiisa isagoo ka baqaya inuu soo dumo saqafku. markii uu bannaanka sidaa u keenayna wuu dumay saqafkii iyo gurigiiba, dameerkiina uu jajabo oo u dhintay. waxaana uu dul istaagay ninkii dameerkiisii dhintay iyo gurigiisii dumay, waxaana uu yidhi, adigu maad qaldanayn dameerow, booskaagu waxa uu ahaa xerada, laakiin anaa qaldamay oo ku saaray meel aanad mudnayn. dulucda sheekadu waxay tahay, way fududahay inaad qof martaba aanu mutaysan siiso, laakiinse waxaa aad u adag inaad ka soo dejiso. haddii aad daawada u baahan tahay inaad iibiso akoon tiktok ah ama aad iibsato, waxaannu ku qabanaynaa adeegaas. haddaba si aannu kugu qabanno, ku soo biir janalkeenna telegaraamka ee brofaylka saaran ama ku qor magaceenna hormuud midiya. inta aanad akoon dalbaninna akhriso maseejka biinku saaran yahay.